Gracias.
هذا كتب بشيء شركة دولة الفدرالية مقدشو وحيصير يقول لسي لا ربي يتوقع على أي سنة في هذا السنة الجديد أي سفر استنى حالات وكلها رجع عفمات كجلد لبعضهم يبقى كده سبيشالي ممكن لبعض العوعة وحكسر الدرجات لبناها أمورها ضدك بعض المريض ضدك بيبقوا كله عروض أو كده عروض شباب عروض اسكت حروضهم كان وكل كفوفه جنب شو عفمات منه يبقى ضد القوة يروح يتحول في عروض عايز تجرب الكلام إن عروضك هي هو الدليل من ضدك مرجع واحد يقول المركي يجي والله هي ستار تطور الأساسي يجري وهو يقول إسرائيل محل أساسي أفر ستار هو لما أنتوا تسكتوا لنا تنصرف كلاموتشي يكون سؤالي مقالة معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هي تلفزيون الغابي حفلة وأنا قلت إلا كينيا يقصوا وضعي نعم كسوق إلا وأخبر في المدن كونفرشن ثم المدن waxaan ku faraxay markii aan ogaaday meelaha qaarkood marka la tago waxaa loo tagaa badanaaba hal jaaliyad oo ka soo qayb galaysa marka xaflad ay dhiganayso jaaliyadaas yani reer galmudug baa dhiganahaya xaflad oo laga soo qayb galaya waxaan maqli jirin in reer galmudug keliya ay oranayaan oo kale laakiin midda tan waxaan ku faraxsanahay reer howlan inay yihiin dad soomaaliyeed ee gobolada Soomaaliyeed oo marka ay sameeyaan meel kooda tahay marka waa mahad gooniya iyo ammaan gooniya oo u qowda tirahon runtii marka waxaan ku noqdo waxqabadkii hore ee galmudug oo waxaa sheegay walaalkay cabdicasiis baa sheegay waxa aan hiigsanayno yarkaa waxbaan xogaa soo dardarsano waxaan rabaa annagu maamul baa nahay sida uu sheegay cabdicasiis waxaana loogu kala galay gobollada dhexe ayaa laga sameeyey maamulkaas xilli loo baahan yahay baa la sameeyey dadkuna dad u bisil bay ahaayeen waqtigaas inay maamul helaan waayo maadaama soomaaliya burka u dhacay maadaama dagaalo sokeeye dhaceen maadaama dadkii aysan waxbarasho iyo caafimaad hayn ku filan waxaa fadhiistay dadka aqoonyahanka ee u dhashay gobollada waxay go'aansadeen inay waxa wax ka bedelaan inta Soomaali isku imaanayso dowlad Soomaaliyeed la samaynayo inay maamul dadkooda ay ku haystaan ku koontaroosaan kuna horumaraan samaystaan waxaan rabaa inaan ku timo gobolaha walaasha oo xaafadda Soomaaliyeed qabta oo tiri waxbarashada horumar laga gaarsiiyo iyo aeroportka loo bixiyo Cabdullaahi Santiina waxaan ogaaday in qofkigeena weyn annagu markii aan galmudug la dhisaba sida aad maqlayseen ma jirin waxbarasho gobolkaas dadkuna waxay ahaayeen markii shaqo loo baahdo waxay u yimaadaan qof walba wuxuu oran jiray waxaan aqaanaa sida meel loo waadiyo qori bolis warqoryaha dhiga baadee qaranka qaata waxbarashada aada iskoolaadka u dareera markaas baa waxaa dhacday hadda meesha ay marayso oo aad maqlaysa 12 oo arday inay dareerayso in jaamacadihii ay 2 ilaa hadda mid kuwa kala samaynayo in dugsiyada sare dhaqdaba si sare ay jiraan in kuwa hoose dhexan aysan tira cabdi aan ku sheegay waxaan go'aansanay in dadka aan qoriga aan sahal looga dhigin ilaa waxbarasho marka waxaan xoog saarnay in la baro 6 sano soo dhaafay ilaa hadda waxbarashada dadka reer galmudug ay helaan
loo baahan yahay waxaan baa ka raadinay maanta ilaahay ma shucaa boqolaal arday oo jaamacadaha dhiganayo waqti walba waa la sameeyey waana dhamaystiray waa la furaya wageegaan magaci loo bixinayo dadweynaha dibadda jiray kuwa gudaha jiray soo dhaweynayna waana nadan yahay allah ciise loo bixay waxaa marka rabaa 6 sano hore ayaan arrimahaas ku suuqsanayn maanta xaflad baa dhigteen xafladaas waa waqtigii loo baahnaa waa sanad guuradii 7 baa qabaaba gelmud waxaa nooga hadlay sanad guuradii 7 waa bisha soo socota keliya kaliman aniga iyo madaxweyne cabdi xasan cawaale sanad guuradii koowaad iyada waxaa ka dhacay labadaas xafladood oo isku saaran labadaas xafladood xafladood oo isku saaran ayaa la dhigahayaa annaguna dawqabaqabada ku sirnay haddana idinku waaba noo soo hormariseen waa wax lagu farxo aan u baahnayn in la sameeyo sidoo kale waxaa xaflad ah iyadana habeen dambe maalinkii calanka soomaaliyeed ay qaadatay 1 luulyo haddii lahayd iyo jaanis fiican oo aan u xirnay oo maanta in laga faa'iidaystaa dadka soomaaliyeed meel walbo ay joogaan waxaan uga dirahayaa halkan hambaryo ayaan leeyahay 1 luulyo waxaan leenahay sanadkiisa allah noo gaarsiiyo galmudugka cusub ee sano jirsatay oo ah madaxweynaha ogeyaha cabdi xasan anuna ku-xigeenka ka ahay waxaan ugu guurnay ama u gudubnay in horumar la taaban karo dadkii dhanka u qabano haddii aan waxyar ka taataabto waxaa ugu muhiimsan oo muddana laga sugahayey oo walaalaheen reer galmudug laga sugahayey in maamul loo leeyahay la sameeyo waxaana kaas loo balansan yahay bisha 9aad ilaahay in la sameeyo gobollada waxay oo dhan ay samaystaan hadda kadibna laga baxo qofka lana gaaro maamul dadka u adeega oo gobollada dhexe oo dhan oo ay noqdo madaxweyne iyo ku-xigeen annagana wax badan galmudug hadda intaan sii haysana wax badan maamul waxka waa ku jecelyihiin miiska ayay naga saaran tahay maanta qofkii la doortana waa la shaqaynayna dadka walaalaheena ee reer galmudug marar badan baanu isku tagnay marar badanna waa wada hadalnay in maamulkaas si wada jira loo wada samaysto waqtigeedii baysan noqon laakiin maanta waxaan ugu farxadgeleynaa in ay noqoto waqti munaasaba oo la samayn doono maamulkaas sida ugu dhaqsiyaha badanna wadqo ka soo bixi doono ilaa deegaan dowladda dhexna ay sheergaraynayso arrinkaas waxaa kale oo yidhi wanaagga laga sameeyo wax kale oo u taaganahay male hadday puntland tahay hadday ximane xeeb tahay hadday galmudug tahay soomaali oo dhan dadka soomaaliyeed wixii laga gaarayna waa ka wada xaal marinay dadka soomaaliyeed meel walba ay jiraana maanta waqtigii hore oo dagaaladu socdeen markii qof la dilo